maamulkii jahliyadda iyo kaadirkii iyo hooyooyinkii iyo mas'uuliyiinta golaha dhexe dhammaan waxay isugu yimaadeen iyo warbaahinta oo iyagana aan si gaar ah ugu mahadcelinayno waxay isugu yimaadeen shirkii ka dhacay shalay magaalada Jigjiga taariikhdu markay ahayd 11 bishii 6 2020 shirkaas oo shir taariikhi oo isugu yimaadeen jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya laguna soo afjaray madmadowgii yaraa ee muddooyinkii dambe soo dhaxgalay jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya jahliyaddu iyadoo ka duulaysa shirkaas quruxda badnaa ee taariikhiga ah waxay rabtaa halkan inay uga hambaliyeyso guud ahaan ururka ONLF iyo shacabka Soomaalida Ogaadeenaya guusha ay gaareen iyo tallaabooyinka wanaagsan ay qaadeen waxaan ku soo dhaweynaynaa mas'uuliyiinta jahliyadda iyo dhammaan xubnaha kala duwan ee jahliyadda iyo golihii dhexe ururka oo iyaguna meesha ka maqnayn waxay noogu furi doonaa wacyi diini ah hoggaanka arrimaha diinta ee jahliyadda Sheekh Cabdi Khaaliq Sheekh Cabdi Casiis ku soo dhawo Sheekh Cabdi Khaaliq alxamdulillah thumma alxamdulillah tawahhada bil mulki wal malakut وتفرط بالعظمة والجبروت لا يحول ولا يزول ولا يقود هو الله الذي لا إله إلا هو لا يتغير ولا يموت إله بقى ما هذا إسكاله الحمد لله وحن لسوكو بكرين إن شاء الله تعالى كلمة ديدة وحن ربعنا نكوكب إن شاء الله تعالى وحا أرت أغومهم سن وتقوى الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى تقوذيسه هدي لهلو وحكستا واستاغيان وحكستنا ونكسنانيان إلهي قرآنك وحاو كل يهي واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين إلهي سبحانه وتعالى وحول يهي إلهينا هلا عضيعو رسولك سنة هلا عضيعو يانا لمرمن هدي لمرمن محاد عيا ولا فشل ميا ولا كالتقيا marka ilaahay subxaanahu wa tacaala baan ooga mahadinaynaa guusha ay gaareen dhammaan xubnaheennii iyo madaxdeennii ayaamahan intii yareeda kala aragta duwanaanshaha waxaan halkan u nimid inaan u wada hambalyayno ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan ka baryaynaa inuu dib inoogu soo celinin halgankii aan 35 sano ku soo jirray waxa aan u soconnay waxay ahayd inaan annaga cirdigeenna iyo sharafkeenna iyo dignitigeenna aan soo gacanta ku soo dhigno ma aha inaan annaga isku mashquulno wixii hadda ka dambeeya waxaan rajaynayaa dhammaan madaxda inay cashir noqoto run ahaantii waxaana soo dhaxgalay waxaa weeye imtixaan ilaahay imtixaanka ilaahayna waxa looga gudbaa oo keliya waa sabar iyo taqwo ayaa looga gudbaa anoo marka ka faa'iidaysanaya fursaddan 6 bilood ama 5 bilood aan soo soconnay alxamdulillah imtixaankii waan ka soo guulaysanay maanta waxaanu taagannahay waqti aan hambalyayno waxaan leenahay guul iyo gobonnimo waxaan kaloo un la dardaarmayaa dhammaan jaaliyadaha Ogaadeenaya ee daafaha ku kala nool oo ay saamaysay intii yareed ee tashwiishka ahayd waxaan ka codsanayaa insha allahu tacaala anoo ka faa'iidaysanayo inay allah subxaanahu wa tacaala koow ka baqaan labo inay u hoggaansamaan kutubkii qur-aanka ahaa ay u dhaarteen 3 in wixii hadda ka dambeeyo shaqadii aanu soo soconnay ee inta aanu soo wadnay aan gacanta isla wada qabanno dhammaanteen guul waanu gaari doonnaa waxaan u baahannahayna waanu cirdigeenna iyo sharafkeenna in naloo yeeriyo maanta oo gacanta naloogu yeeriyo waxaa keenay annagaa isku mashquulnay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee degan Ogaadeenaya ama Soomaali galbeed waxaa muhiima inaan midowno ka maamul ahaan iyo ka xisbi ahaanba dhammaanteen inaan u midowno inaan cirdiga sharafta ay Soomaalidu leedahay ama dhulkeennu aanu leenahay inaan u midowno waan idin salaamay insha allahu tacaala halkaasaan ku soo koobayaa
waa mahadsan yahay sheekh cabdikhaaliq waqtigoo gaaban awgii waxaan rajaynaynaa in lasoo gaagaabiyo iyo dadkoo badan iyo farxadda oo badan waxaan ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha jahliyadda mudane sheekh maxamuud ku soo dhowo guddoomiye gudoomiyaha jabadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya cabdiraxmaan doctor cabdiraxmaan sheekh mahdi maadey iyo dhammaan golaha dhexe ee jabhadda heshiiska ay jigjiga ku gaadheen waxaan aad u soo dhoweynayaa haddii ilaah yidhaahdo golaha dhexe carab maxamed aadan gaadad maax hogaanka guud ee xogeyaha guud ee maaragtay golaha haaj gaani xirsi iyo dhammaan mudanayaasha jooga waxaa kaloo nu mahad celinayaa warbaahinta ay nagala soo qayb gashay sida warbaahinta sahan oona iyo haddii ilaah yidhaahdo afmeer t v oon iyadu ahayn mid la iloobi karaba oon aad iyo aad mudaan gooni u siisiinaya weliba waxaan salaamayaa jaaliyadda oo dhan dhammaanteed golaha dhexe kaadirka iyo dhammaan jabhadda oo dhan jaaliyadda reer ogaadeenya ee minnesota runtii maanta waxay inoo tahay farxaddan oo ah waayo sababtoo ah ummaddeennu qalbiga ay ku xisaabtamayso waxay ku xisaabtay hantida u ah waxaa weeyaan waa onelf yay ku xisaabtamaysaa marka waxaa weeyaan runtii wixii dhacay arrintii dhacday ee yarayd runtii ummadda qalbigeeda dib aad bay tashuush u gelisay maantana alxamdulilaah arrintaa ka dhacday jigjiga ee maanta laisku raacay taas baa meel kastaba maanta lagaga bogsaday wixii ka dhacay wixii jiray oo dhan oo tashuushna galay qalbiga bini'aadamka waxaa weeye haddaan qalbiga bini'aadamka wax u galaan in laga saaro unbaa muhiimka maxaa laga saari karaa israac waayo siday ahayd baa onelf waxay meesha ku soo gaadhay isku tashi iyo isgarab istaaggeeday ku soo gaadhay wax kale kuwan soo gaadhin waxaa weeyaan marka waxaan leenahay oon soo dhowaynaynaa mar kastaba annagu waxaan arkaynay uun onelftu kala tegaysa inayn ahayn waayo intay soo mareen baa waxay tahay waa rag ku soo guftay 30 sannana soo dagaalamayey soo ordahayey oo meel kasta u taagnaa marka waxaa weeye rag aan marnaba meella ku kala tegaynin intii qalbigooda wax galayna waxaan leenahay waxaad ogaataan in runtii aan guusha aan u soconnay u jeednay meeshaan u soconnay inaan gaadhayna insha allah bidnillaahi qariib waqti dhowna aan gaadhayna maanta dagaalku hadduu inoo yaallaa waana dagaal adag kaan ku jirnay ka adag baa yaalla waxaa weeye marka inaan gacmaha isqabsanno waxaana u sheegayaa dadka reer ogaadeenya meel kastay joogaan inay gacmaha isqabsadaan ummadda ku nool ogaadeenya oo dhan inay midnimo ku istaagto taas baan kaga qayb qaadan karnaa hawsha maanta ka jirta geeska afrika iyo etoobiya oo maanta aad aragtaan kala yaacaysa in aan innagu meeshan isdhigno ayay ku xidhan tahay marka waxaan leeyahay oon soo dhowaynayaa salaamayaana guddiga fulinta iyo guddoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya maadey dhammaan iyagoo gacmahays haysta kolkaan aragnay runtii waxa weeye tashuush kastoo jiray wuu baxay saas baan u sheegaynaa ummaddeennana waxaan u sheegaynaa meel kastay joogaan inay gacmaha isqabsadaan aynan ku gaadhi doonno gacmaha isqabsannaan ku gaadhinaa meeshaan doonno iyo meeshaan doonno etoobiyana maanta innaga inoo taallaa qalinkeenna meeshuu ina geeyo ayay inoo taallaa insha allah aan dadaalno bismillaah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim amaa bacd alxamdulilaah ilaahay baa mahad iska leh maanta isugu keenay goobtan madashan la yidhaahdo OYSU Park goobtan aan maanta joogno waa goob taariikhi ah ururka dhalinyarta ogaadeenya bay ku caanbaxday oo ku shirar qabsan jiray intaa markaan ka soo gudbo mahadnaqa rabbi subxaana wa tacaala waxaan u mahad celinayaa dhammaan jaaliyadda iyo saxaafadda maanta halkan isugu timid ujeeddada aynu isugu nimid waa ay kooban tahay waa taageero inaan taageero go'aamadii maaragtay wanaagsanaa ee shalay toole ay gaadheen ururka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya go'aamadaas oo ku qotomay soo afjariddii lasoo afjaray madmadowgii shaqo ee soo kala dhex galay ururkeenna muddadii koobnayd keliya waxaan rabaa inaan ogeysiiyo dhammaan ummadda shacabka soomaalida ogaadeenya ha la ogaado horta dadkii ay hawle ka dhaxayso unbay ama madmadow soo kala dhexgelay ama ayna soo kala dhexgelaynin waana sunnatul xayaat bulshadu marka ay hawle ka dhaxayso
inay isweydiiyaan shaqada sidan ay ku qurux badan tahay iyo sidan ay ku qurux badan tahay marka kaliya waxaa muhiima maanta dib uma noqonayno ma go'anayno maaragtay madmadowgii wixii soo dhacay balse waxaan u baahanay inaan hor u soconno oon isweydiinno cashir inaan ka baranno muxuu yahay cashirkaan ka baranayno waxa weeye mahmaadii Soomaaliyeed ee odhan jirtay laf aan la tuurin feenka lagama dhamaysto ereygaas waa muhiim mahmaadaasi aad baan aniga ii deeqday waxaan rabnaa mustaqbalka hadduu eebbaad idmo shaqa inoo taala hawl baynu isla qabanaynaa shaqadaas ayada waa la isweydiin aniga ra'yi baa ila qurux badan walaalkeena ra'yi baa la qurux badan markay taasi timaado macnuhu maaha in la islaayay macnuhu maaha in halganka maaragtay la burburinayo waa aragti kala duwanaansho weeye xubnaha waxaa faran in ay awaamirtoodii sida ay ahayd jaaliyadkooda ugu xidhnaadaan maamulkooda ugu xidhnaadaan inaan shaki la gelinin halganka iyo maamulka marka inaan colaad iyo maaragtay la abuurin oo laga dhigin halganka colaad inay maaragtay jirto wax colaadoo jirta ma leh shaqa ay noo socotay hawl baa socotay haddana waan arkaynay insha allahu tacaala khibraddii ururkeennu sida uu kaga baxay umayna yeeranin cid kale oo ka baxsan dowlado kale mayna u yeeranin dhexdoodii unbaa fadhiistay waana la dhammaystirtay marka jawxo khibrad bay u leedahay inay khilaafaadkeeda iyo aragti kala duwanaanshaha xalisato jaaliyadkuna dhammaan insha allahu tacaala waxaan maaragtay farayaa ama ka codsanayaa in ay taageero noocaas oo kaleetaa sameeyaan shaqooyinkii sidii ay ahaayeen dib loogu soo celiyo halgankeennu maanta wuxuu marayaa waqti marxalad xasaasi ah ama doorkan ayaynu ummadeenna hoggaanka u qaban doonaa oo aynu gaadhsiin doonaa masiirkii ummadda aynu rabnay inaan gaadhsiino iyo ayakatashigii ama waxa weeye intaynu kala daadanna baa laynaga faa'iidaysan doonaa marka in laynaga faa'iidaysto maaha waa inaynu insha allahu tacaala gaadhsiino rabitaanka shacabkeenna inaan dib dambe loogu yeedhin intaas arrinaan kusoo gebagabeeyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaan jaaliyadda Soomaalida ogaadeen ee gobolka Minnesota rag iyo dumarba aad bay u mahadsan yihiin jazaakumullahu khayran wassalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ilaahay baa mahad leh marka hore waxaa mahad labaad leh maamulka jaaliyadda Minnesota hormuudka u yahay Sheekh Maxamuud Cabdiqaadir iyo mas'uuliyiinta golaha dhexe xubnaha oo dhan hooyooyinka kaadirka dhalinyarada dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaan waxaan sidoo kale tahniyad iyo salaan u gudbinayaa dhammaan urur weynaha ONLF meel u joogaba ama xisbiga ONLF iyo shacabkiisa Keenadiidka ah ee 40 sano ee ugu dambeeyay geeska Afrika keligii challenge garaynaya cadawga Soomaaliyeed guusha weyna ka soo hoyay afkana dhulka u daray wayaaniga ugu dambeeyay guushaas sidaynu u dhameystiri lahayna insha Allah waa aad baa looga hadlay waxayna u taalamad Soomaaliyeed oo dhan waxaan rabaa un kaliya anigu inaan laba eray dhaho labada eray mid waxa weeye meel shaqo ka jirto baa haddaad aragto muxuu ahaa dad wax haysta waa shaqo jirta meel shaqo ka jirin la isma qabsado shaqadana de waad garanaysaan waa la isku qaban oo aan la fsideedaba hadafkeeda iyo himaladeeda iyo mabaadiideeda iyo waligeed iskuma qaban ilaa iyo Sheekh Ibrahim iyo ilaa iyo Umar Ismaan iyo ilaa iyo hadda meesha ugu dambaysa waxa kaliya muxuu ahaayay farsamada iyo shaqada iyo dariiqyada iyo shortcut wayga inta way wixii lagu wada hadlo waana shaqa meesha ka jirta waxa kale oo rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan aan maqashiino kolkii Soomaalida laba qof wax isku yar qabsadaan waxa u yeedhaan Kenya ay tagaan Djibouti ay tagaan Uganda ay tagi beesha caalamka loo yeeran odayga muxuu ahaa meesha joogay James Wan jaamacad iswaal baan u bixinay James Wan baa loo yeeran ONLF waxa uba yeerato kaligeed baa qol isku soo xidhan hadday doonto feerbay nagta iska guri waxaanad garanaysaa inay waxay ku jirta uu xaq yahay oo ayna xoolo isku haysanin oo xukun isku haysanin oo qabiil isku haysanin oo 4.5 ayna ahayn ee ay tahay halgan iyo sidana fiican iyo la xajaro marka taasna horta sidaas aad ogaanaysaan mar kasta qolo kasto isqabatay ONLF u imow iska dhaafo beeshan lixaadeed haddii la idin kharibtay faraha ka qaada intaas waa inta kale waxaan rabaa inaan dardaaran ah ummadda Soomaaliyeed maanta fursad baan haysanaa Ethiopia waad ogtihiin xalkeedu burbur baa lagu tilmaamay Yugoslaafiyadii madoobeed baa caalamku ku tilmaamay iyo ICG waxa loo baahan yahay inaynu diyaar garowno maamulka iyo culimada iyo ururada xisbiyada mucaaradka ONLF oo hormuudkii halganka oo khibradii idin haysa kulligan gacmaha intaynu isqabsanay shacabkeena sidaynu
goolkaa u dhalin lahayn ee ilmaheenna aynu ugu fakari lahayn ee aayaheenna ugu fakari lahayn ee caqiidadeenna iyo muxuu ahay khayraadkeenna u badbaadsan lahayn raad oga tegi lahayn sidii kii axmed gure iyo sayd cabdilla xasan iyo inooga tageen wiilwaal iyo aynooga tageen baa loo baahan yahay ilmaheenna in layna xuso mustaqbalka halgankeennuna aanu khasaare noqonin. bismillahi raxmaan raxiim. waan idin salaamayaa dhammaantiin rag iyo dumarba dadka maaragtay jaaliyadda ee meesha isugu yimid. kormuu qaadaa haa waad aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin dadka meesha isugu yimid ee maaragtay jaaliyadda foljeex rag iyo dumarba. anu waxaan ku bilaabayaa wax yaroo kaftanahoo yacni inuusan waxa khilaafka la yidhaah fiicnayn baan idiin sheegayaa. dhalasho isuma keenkeenno dadkeennii baa ka buuxa suuqa, laakiin waxaa isu keenkeena waa mabda. marka waxaa dhacday hadda ka hor nin baanu baarkinka guuleed isku laynay, ninkii oo xanaaqsan oo caytamaya yaa dukaanka guuleed galay. dukaanka markuu galay gaani baa loo sheegay oo layidhi ninkan cabdidheeraysa soo dileen. nin bis islaana wuu ahaayoo meesha ka shaqaysta oo shaqa ka dhexaysay ilaa yoomina haada mamnuuc buu ka yahay ninkii dukaanka inuu soo galo. taraas baasid baa laga siiyey. ninkii sidaa ahaa ayaa hadda muddo 3-4 bilood ama aanan isa salaaminayno saa isku ahayn. dadka oo dhan baa yaabay oo warsay wax yihiin. daraad baa u dambaysay. daraad ahayd yaa u dambaysay. marka ilaahaygii inaga soo afjaray xanuunba waxaan ahaa yaan ku mahadinaa. ilaahaygii inaga soo afjaray baan ku mahadinaa. waanan taageeraynaa, waanan soo dhowaynaynaa, guul iyo gobonnimaan rajaynaynaa. haddii la gacmahaynu isqabsanaynaa. waa la isyara xantahay. anigu saamax baad iga wadatiin dhammaantiin. saad u dhantihiin kulligiin, saad u dhantihiin saamax baad iga tihiin. cid aan wax u haystaa ma jirto. marka waxaa weeye sidaa ula socda, aan iswada saamaxno, aan shaqadeenna qabsanno, aan hawlbaa inoo taalo fara badan. ta kale waxa weeye haddaynu nahay reer Ogaadeynaya, innagu dad qaybsami kara ma nihin. dad yar oo Soomaali ah baynu nahay. waxaa jabhadda mas'uuliyadda ka saaran tahay inay Soomaali oo dhan midayso, inay hal shakhsi uu u matalo dowladda Itoobiya oo uu la hadlo. waayo 100 milyan oo caydh ah oo gooryaan ah oo balaaye ah oo nalaafiya diin midna ahayn baynu wax wadaagnaa oo ina haystaa. kama dabaalan karno haddaynu qaybsanno. waxaa loo baahan yahay dhammaanteen inaynu mid noqonno oon midowno cadowgaasaan uga bixi lahayn dibad iyo gudaba. taasaa laynooga baahan